Safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, xafiiskeeda arrimaha diinta iyo awqaafta, ayaa dalka Koonfur Afrika waxay boqolaal qoys oo ka soo jeeda dalka Suudaan. السودانية في جنوب أفريقيا. كما تعلمون لقد أثرت الحرب الجارية في السودان لأكثر من عام على عدد كبير جدا من المبتعثين السودانيين الموجودين في الجامعات هنا في جنوب أفريقيا. استوقفت التحويلات لهم من أهلهم في السودان وتأثروا تأثر كبير جدا بهذه الحرب، وقد قامت الجالية السودانية بسعي حثيث لجمع تبرعات من بين أعضاء الجالية ومن أصدقاء الجالية لدعم الأسر المتعففة والمتأثرة بهذه الحرب. اليوم أنا لا بد لي من أن أشكر سعادة السفير محمد الشيخ إسحاق سفير جمهورية الصومال في جنوب أفريقيا، وله أرسل رسالة عن طريق أخي سيد شريف حمزة الملحق الديني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الصومال. أشكر لهم دعمهم للجالية السودانية. هذه هي المرة الثانية التي نتسلم منهم دعم عيني للجالية السودانية. نحن نشكرهم شكر جزيل جدا، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن تكون هذه المعاملة الطيبة من الجالية الصومالية للجالية السودانية سببا في وقف الحرب في السودان ووقفها في الصومال حتى يعود البلدين يعني في سلام وأمان إن شاء الله. أشكركم مرة أخرى وأشكر السيد السفير، وأتمنى أن ألتقيه حتى أقدم له الشكر مباشرة إن شاء الله. ugu qaybiyeen cunooyin kala duwan. Shariif Xamse, madaxa xafiiska arrimaha diinta iyo awqaafta safaaradda Soomaaliya dhigeeda magaalada Pretoria, ayaa inta badanba u taagan inuu caawiyo qoysaska dhibaataysan ee dariska la ah. waxaan maanta siinay oo ay tahay taariikhda 24 bisha afraad 2024 jaaliyada walaalaheena nala degan wadankan South Africa raashin waa markii labaad. ramadaankan waan siinay alxamdulillah. magaciisa tan waa raashinka hadda aad arkaysaan ayaan ku wareejinay, maadaama oo awaal weyn ayagana ay noogu leeyihiin oo ma arkaysaa wax badan ay na garab qabteen xiliyadii dagaalada aan ku jirnay. anagana ka safaarad ahaan anigoo aad kaga mahad celinayo safiirkeeni Dr. Maxamed Sheekh Isxaaq oo igala dardaarmay, iguna wacyigeliyay oo iguna yiri la budda waa inaan jaaliyada Suudaan wadanka South Africa la degan anaga naga mid yihiin, Soomaalida ka mid yihiin. magaciisa waa inaad mucaawanada iyo dhaqaalaha waxa la siinay ayaga ugu horeeyaan. marka amarkii safiirkan waan fulinay saakidaantii waa markii labaad. waxaan ku wareejinay raashinka hadda aad arkaysaan isugu jiro waa dadka Suudaaniyiinta wadankan degan macna ardaydoodii الدكتور عبد الكريم جبريل الغوني ayaan ku wareejinay insha Allah taala oo ah jaaliyada madaxeedii. ma wadna arki doontaan dadkii sida loo siinay insha Allah taala. waana wadayna Ilaahay haduu yiraahdo sida horeba aad xafiiska arrimaha diinta iyo awqaafta ee safaaradda Koonfur Afrika ugu barateen inaan dadka masaakiinta la caawiyo oo ma arkaysa agoonta la caawiyo, garoobaha la caawiyo, jaaliyadan dadka wadankan dhibaatada ku hay la caawiyo. dadka Soomaaliyeed dhamaan waxaan anfaraya leeyahay aan isgarab qabano wa taawanu ala albirri wa taqwa. Ilaahay saasuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ma arkaysa wanaagiisa mafalka la isku caawiyo oo waxaad haysatid walaalka uu kala cuno. taana waa iga dardaaran insha Allah taala. ka safaarad ahaan mar walba waan taaganahay in jaaliyadeeni horumarkeedii ma arkaysa iyo wax qabadkoodii waxbarashadoodii inaan horumarino. waa tan shaqadana la soo igmaday. haddana waxaan aan leeyahay safiirka الدكتور محمد شيخ إسحاق aad buu mahadsan yahay dhiirigelinta iyo ma arkaysaa iyo garab istaag oo ummadda Soomaaliyeed iyo jaalidaha la nool buu muujiyay. marka waxaan leeyahay insha Allah taala waan wadi doonaa insha Allah taala shaqadaantii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan markasta aan ugu mahad celinayaa bacd Allah subhanahu wa ta'ala TV-ga Shabeella sida ay ila shaqeeyeen ka xafiis ahaan arrimaha diinta iyo awqaafta, sida ila shaqeeyeen ramadaanka oo dhan ila shaqeynayeen.
ayagoo hadda voluntary ku shaqaynayay ma arkaysaa oo u diyaar garoobay in jaaliyadda waxqabadkooda iyo ma arkaysaa sida loo caawin lahaa iyo dadka nala deganba Shabeelle waxaan leeyahay magaciisa oo halkaan matalay Mr. Crash aad baa u mahadsan tahay waa hor u socon leeyahay insha Allah taala waa shaqo aad weyn buu jaaliyadda u hayay insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Cabdirashiid Xuseen Crash raadiyaha TV-ga Shabeelle xafiiska arrimaha diinta iyo awqaafta ee dalka Koonfur Afrika.